haddaba sheekadii ayaa waxay isku bedeshay haweeney bodyguard ah ayaa waxay guursatay booskeeda oo ka weyn 41 sano kadibna maalintii xigta ayaa laga helay meydkiisa qolkiisa sidaa darteed waxay dhaxal u heshay hanti aad u tiro badan waxayna sidoo kale isu jahayaan ninkan ilmihiisa oo xaaskiisa ay dhashay halka asiga uu dhalin ilmaha haddaba sidee wax u dhacay filimkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa magaalo yar oo la yiraahdo Mujaan oo u jirta 4 saacadood magaalada weyn ee Seoul waxaana ku nool dad aad u tiro yar waxaana maanta ku soo biiray dadka deegaanka macallimad la yiraahdo Busami oo ilmaha yarka macallimad u noqonayso laakiin macallimadan magaceeda saxda Kim Young Ran ayaa lahaa dadka deegaanka halkaana ma oga arrinkaasi macallimadan waxay la soo kortay waalidiin aad u xun oo aad u dhibaateeyeen yaranteedii ilaa haatan ay qof weyn ay taana hooyadeed ayaa dhibaato ku wado lacag walba ay hesho ka qaadanayso lacagtaas oo ka soo shaqaysay shaqooyin aad u dhib badan hooyadeed ayaa lacag deyn ah oo 60 milyan gaaraysa ku soo qaadatay magaceeda markan Young Ran way ka daashay gudida ay gudaysa lacagtan tirada badan waxayna la gareysatay shaqo security ah kadibna waxay tagaysaa meeshii lagu qaaday waraysiga laakiin ninkii waraysiga qaaday Master Lee kama helay gabadhan CV-geeda kadibna isaga tagay meeshii la ku leeyahay isla markaas ay xirfadeeda adeegsanaysaa kadibna weerar kiris ay ku soo qaadaysaa isla markuu dhici rabana hore ay ka qabanaysaa arrinkaas oo la dhacayo Jermanki ka daawanayay kamerada kadibna Jermanki ayaa lawyerkii Lee ku amray inuu shaqada siiyo gabadhani maalinteeda ugu horeysay ee shaqada ayay waxay ku arkaysaa kushiinka in miraayadihiisa ay wax ka qaldan yihiin mid hal lakab ay leedahay mid kalena waa laba kal lakab kadibna shaki ayaa galay inay kamera meesha ku qarsoon tahay isla markaas dhahda soo qabo ayaa gadaasheeda waxay ka maqlaysaa dhawaq isla markiina way soo jeesanaysaa badla kuwi ayaana ku imaanayso waxayna ku leedahay maxaa sameynaysaa ayadoo ku dhahaysa cunto ay raadsanayay kadibna badla kuwi ayaa siinaysa noodles gurigan habeenkii xeer ayaa u yaalo 5 saac oo habeenimo wixii ka dambeeyo cid dhaqaaq loo ogol yahay ma jirto oo wala seexanayaa waxayna qolka isku baranayaan gabadhan yiraahdo Heiji Young Ran intay maqnayd ay borsadeeda baartay Young Ran markay ogaatay kama aan xanaaqani sidaa darteed Heiji waxay doonaysaa inay gabadhan la saaxiibto Young Ran subaxdii hiirada ay ku soo kacaysaa si uu soo basoo aragtay inay kamera tahay in kale intayna bixin korna waxay isku hubinaysaa Heiji inay soo jeeday in kale kadibna kushiinka ay ku soo laabanaysaa waxayna arkaysaa kamerada meesha ku qarsooneed kameradana Jermanka ayaa meesha ku dhagsaday wuxuuna ka fiirsaday qolkiisa dambe wuxuuna halka kala socdaa dhammaan guriga wax ka socdo kameradan halka kaliya maahan ee kaamirooyin badan ayaa guriga ku jiro dhowr kaamiro oo kale ayayna arkaysaa kadibna Jermanki oo daawanayay halka uu baaqaysa halkaas ayuu ku qoslayaa wuxuuna dhacayaa gabadhan sidii indhaargaad u tahay ee hore ugu ogaatay inuu kaamira guriga ku xiran yahay Jermanki wuxuu ka tirsan yahay ganacsatada caanka ah wadanka kamarigiisana waxay soo saaraan noodlista baastada Jermanki familkiisu wuxuu ka kooban yahay hal wiil iyo 2 gabdhood wuxuuna si sax ah u dhalay hal gabar oo kamid ah gabdhaha halka gabadha kale iyo wiilka kale ay dhashay naagtiisa hore ay dhimatay familkana waa family isku kankeena asiga dhanba darawalka Jermanki ayaa Young Ran wuxuu u sheegayaa gabadha kaliya oo dhalay inay waxay ahayd droogiste iyadoo daroogo iska soo badisan shil baawur ay ku geeriyootay wuxuu kale u sheegay wiilka inuu nacas yahay laakiin gabadha la yiraahdo Shen Yan ee professorad tahay qatarna ay tahay in la iska jiro inay taxadir samayso markay la kulmayso gabadhaasi Shen Yan waa gabar wax baratay bahalna ah mar walba waxay lagooniya ku haysaa Jermanka waxayna guriga u keentay badla kuyi si dhaqdhaqaaqiisa ula socotay wax walba sameeynaayo maadaama Jermanka uu duq yahay oo iska dhiman karo haddii naag u soo dhawaato oo la saaxiibna kale uu yeeshana ay dhaxalka wax iska bedelayaan dhibaatana ku naqanayso gabadhan Shen Yan waana sababtay Shen Yan una ogolaaneen in Jermanka hal naag u soo dhawaato Young Ran halkan waxay ka ogaatay dhimashada Jermanka inay faa'iido ugu jirtay Shen Yan guriga markay u soo socdeen ayaa Jermanki darawalkii uu iska fasaxayaa sidaa darteed fursad ay waxay ka helaysaa Young Ran halkan waxayna weydiinaysaa sidoo kamerada meesha ugu xiray waxayna ku leedahay kamerooyinka adaga meesha ku xiray Soomahan markii hore waxaan ku melinay shahaari oo doonayna gabdhaha guriga jooga inuu fiirsado laakiin markaa ogaado musqulaha iyo meelaha khaaska inay ku xirneen kamerooyinka sida ayaa ku ogaaday sida darteed waxaan u maleynayaa inay noloshaada qatar ku jirto aan iswaardiyeynayso laakiin Jermanka uma jawaabayo waxaan kaloo halkan ka ogaanaynaa inuu una cunin raashinka ay u kariso badla kuwi maadaama ay ka socoto Shen Yan bedelkeeda raashinka banaanka waxa uu keenay lawyerkiisa Master Lee waqtigan waxaa la joogaa waqtiga shaqaalaha la fasaxi lahaa dhammaan lacagtooda ayaan la siinayaa iyo gunadooda si ay u fasax u qaataan dhammaan waa la fasaxayaa macallin lawyerkii laakiin guriga waxa ku harayo Young Ran oo garanayn meel kale ay aado si ku meel gaar ah in guriga iska sii joogaysa badla kuwi ayaa isla markiina arrinkaas la socodsiinayso Shen Yan aad ay u caroonaysaa arrinkan maadaama ayna doonin Jermanka in hal haween u dhawaato marka Young Ran habeenkii way cashaynaysaa waxayna la cashaynaysaa Jermanka waxayna isla cunayaan noodles isla markaas ayaa albaabka la soo garaacaya Jermankan hore ayay ku dareemayaan qofka ay tahay wuxuuna ku amrayaa Young Ran inay isqariso inay ka dhuumato isla markaasna albaabka ayuu furayaa markuu albaabka furo Shen Yan wax kale ma dhahayso isla markii waxay bilaabaysaa inay baadi goobto Young Ran qolqol ayay u raadinaysaa ugu dambeyn qolkii markii isdhaxdo fur ayuu Jermanka ka cabsanaya inay ogaato kadibna uu wacayaa laakiin isla markaas waxay leedahay sababta ku wacayo meeshan ay ku jirtaa wayna furaysaa laakiin way ka weynaysaa nasiib darro oo sidii rabto wax uma naqan isla markaasna way iska naqanaysaa oo iska tagaysaa markaas ay Jermanka wuxuu wacayaa Young Ran wuxuuna ku leeyahay soo raac qolkiisa khaaska iyo xafiiskiisa ay ka daba galaysaa isla markay gashana way weynaysaa meel ka baxay
markaas ayaa derbiga ka gadaaliyay furmaayo albaab ayaa ka furmaayo markii gudaha u gashana waxay arkaysaa qol weyn oo shaashado fara badan oo CC camera ay ku xiran yihiin German-kana halkaan ay kula socdo dhammaan guriga wax ka dhacayo isla markaas ayuu wuxuu tusinayaa gabadhiisa saxda ahayd sawirkeeda wuxuuna u sheekaynayaa sidii wax u jiraan wuxuuna u sheegayaa gabadhiisa inay daroogista ahayn ee gabar fiican ay ahayd waxbarashada u aaday darooga intay cabtana ay shal ku dhimanin laakiin la sumeeyay oo la dilay cid kale maahan ay washanyaan hadalka German-kan iyo Yan Ran uu ka yaabinayaa kamana filin arrinka inuu sidan isku bedelayo oo lacag darta familkan isku laayeen isla markaas German-ka qanad ayuu furayaa oo qasnad ku jirto qasnada ayuu furayaa kadibna lacag badan ayay ku arkaysaa iyo dahab fara badan oo ku jiro laakiin kaliya wuxuu ku soo baxsanayaa box series oo mushrik gees ka yeelay isla markaasna boxka ayuu horteeda keenayaa boxka markuu furana faraanti ayaa ku jiraba waan iska fahmi kartaa faraantiga wuxuu yahay oo markaan German-ka wuxuu doonayaa inuu dhaxalka bedelo gabadhan uu guursado halkan waxa nooga muuqdo Yan Ran dib u dham halkan inuu bilaabo doono arrinka haddii aqbashana nolol daba ay lugta la geli doonto laakiin waxa arkaynaa Yan Ran markaan inay ka diidayso inay guursato ninkani oo isguursadaan sida darteed waxay aadaysaa guriga qolka ay gelaysaa kadibna waxay soo arursanaysaa dharkeeda si ay u baxdo isla markaas ayaa hooyadeed soo wacayso ayadoo weydiisanayso lacag markaas ay ku kacaysaa gabadhani wayna ka ogolanaysaa overkii uu soo dhigay ninkani waxayna sidaa ku ogolanaysaa inay noqoto maqaalintii ilmaha lagu dabi lahaa oo dambiilayaalka sirtoodan loo soo bandhigi lahaa guurka hor Awokatili ayaa wuxuu diyaarinaa kontraada ay gabadhan German-ka geli lahaayeen kontraadan waxa ku qoran maalintuu dhimanayo German-ka iyo in 3 bil ka bacdi doorasho kambaniga la qaban doono dhimashada German-ka Yan Ran ay waajib ku tahay inay ka qayb gasho doorashadaasi si ay Sunyan iyo walaalkeed riyadood u burburiso halkan awoodda ay dhaxalka ku leedahay ugu soo bandhigato taasoo ka risaagi doonto inay kambaniga wax lagu ku yeeshaan ama maamulka ay soo galaanba Yan Ran dhaxalka shuruudan kaliya ay si toos ugu heli doontaa markay fuliso kadib laakiin si walba ahaato German-ka dhimashadiisa waxa la rabaa Yan Ran inay gacanteeda ku disho oo iyada ay sabab u noqoto dilitaanka ay dilaysana video in laga duubi doono videogaasna Awokatili oo hay doono haddii lacala shuruudahan laga rabo ay oofi doontona booliisku u diibi doono sida darteedna dhaxal inay hesho iska daayay baxar ay geli doonto inkastoo Yan Ran arrinkan aad u adkaaday haddana dib u isaga ogolaanaysaa oo kontraad sida ay ku saxiixaysaa maalinta xigtaan xafiiska public ee la isku guursaday ay isla aadayaan sida ayuu guurkooda ku dhacayaa Yan Ran sida ay shahaadada guurkeeda ku helaysaa isla markaas loo yeelay wuxuu dareemayaa inay gabadhan bilowday inay xaaska German-ka tahay camal haddaba 3 bilo ka horreysay kulanka halkay joogaysaa Yan Ran looyarli ayaa markaa warbixinta dhammaystiran siinaya wuxuuna u sheegayaa magaalada yar oo Mujaan yiraahdo inay joogi doonto magaaladaasna wax tariin ama bas ah ma tagaan kaliya baawur ayaa lagu tagaa waxayna ku habboontaa si ku meel gaar inay meeshaas ku sii dhuumato maadaama Shonyin iyo Shonyu haddii ay maqlaan gabadhan inay xaaska German-ka tahay ay isla markaas bilaabi doonaan inay gabadhan ka takhalusaan dilkeedana qarash badan ku bixi doonaan Mujaan sababtoo German-ka u doortay kaliya maahan inay gabadhan ku dhuumato waa inuu sidoo kale god siraad ugu qodaa meeshaasi si haddii ay dilaa gabadhan u soo diraan qof meeshaasi kadibna loo qabto sidana sirtooda loo ogaado sidoo kale magaalada Mujaan waxaa degan ninkan lagu magacaabo Domin waana wiil ka ganacsi strawberry-ga wuxuuna leeyahay beer strawberry ka soo baxdo magaalada inuu soo obgeeyo strawberry-giisa sidoo kale German-ka uu keenay strawberry-giisa fresh-ka ah waxaan arkaynaa maalin asigoo strawberry-ga soo dejinayo albaabka baabuurka uu ku dhici rabo ayaa waxa ka qabanaysaa Yan Ran kadibna markuu soo degto asigoo dhahayo umad celi haddana wajigeed arki maayo hore ay u sii dhaqaaqaysaa Awokatili ayayna qaraabo yihiin ninkani tan ayaana kamid ah sababaha German-ka u doortay meeshaani sidoo kale Awokatili gabadhan wuxuu u sameeyay aqoonsi cusub wuxuuna ka dhigay inay tahay macallimad ilmaha yaryarka halkaasna ay macallimad ahaan u tagayso sidoo kale German-kana Lee Domin saaxiib ayuu leeyahay maxay strawberry-giisa ayuu aad u jecel yahay mararka qaar markuu keenana aad ay u shakeystaan oo wada fadhiistaan markaan waxa arkaynaa iyagoo wada fadhiyo wax yar kadib Lee Domin markuu baxo German-ka ayaa xafiiskiisa ku dhacayo isbitaalka ayaa loola soo cararayaa doctorka ayaa la tacaalayo doctorka markii hore wuxuu u sheegay German-ka inuu noolaa doono 6 bilood maadaama uu kansar qabo laakiin markuu dabeeritaan ku celshay 3 bil kaliya inuu haysto ayuu halka ka ogaanayaa arrinkaas oo dhakhtarka sheegayna kalkaaliso meesha ka dhaweyd ayaa maqlayso isla markaas Sunyan ay soo wacaysaa arrinkii inuu la socodsiinaysaa halka Sunyan ay weydiinayso dhakhtarka qaabisan arrimihiisa dham inuu soo ogaato isla markaas waxa arkaynaa Sunyan oo wariyaha wacayso una sheegayso arrinkani si wargeysada loogu soo daawaco duqa inuu dhiman rabo isla markaas sida wax kala habeynayso walaalkeed ayaa la yaabayo waxaan ku leeyahay walaashay caadi miid sida wax u habeynayso halka ay ku dhahayso hooyadeen hantideeda si dib u soo celino 28 sano ayaa sugeynay markaan ayana inoo suurto galaysaa habeen saxariir badan kadib German-ka markaan wuxuu go'aansaday inuu qorshihii dilka halkiisa ka si aan baqaado si ay gabadhan ugu durto cirbada sunta ahayd kibna intay soo diyaarinaysa ayuu wuxuu ku leeyahay intaad arrinkan fulin ka hor waa inay keentaa cunto yar sida ayaan ku soo baxaysaa cuntada ay soo doonaysaa kadibna fiidiyoga ayuu soo doora ayuu wuxuu soo baxsanayaa bistoolad isagoo madaxa isaga aadinayo isla markaasna boom waxa maqlaynaa xabadii Yan Ran way soo cararaysaa markay timaadaan German-kii oo hamaansaday u imaanaysaa cid garanaysa ma jirto sababtoo qorshihii uu bedelay waqtigii uu dambeeyay iyo waxa uu ku damacsanaa German-ka dhimashada German-ka Shonyin iyo Lee Don waxa uu meeyay murug laakiin waxay u ahayd farxad waxayna u taasay inay heleen dhaxalkoodii ee muddada dheer ay sugayeen
waxayna u haystaan markaan awood iyo lacag bayna gacanta ku dhigeen isla markaas ay Abukaati Lee u maanay sheekada dhammaan ka qasaayo isla markaas ay Sun Yun waxay ku leedahay dhaxalkii wixii dhamaa isku habayso xageena ay soo wareeysinaysaa Soomaha laakiin Abukaati Lee ayaa ku dhahay maya oo isbedel ayaa jiro kadibna labadood ay soo wadayaan si uu isku baro ayaga iyo Yan Ran wuxuu sheegayaa Germanka intuu dhiman ka hor inuu gabadhan guursaday xaaskiisana ay tahay arrinkaas oo labadooda ka caraysiinayo markaas ay Lee doono xanaaqsan xageeda soo aadayo kadibna walaashii Sun Yun ayaa ku qaylinayso kadibna Yan Ran xageeda ay aadaysaa si uu absato oo una qasabtay arrimahan inay dib ugu baxdo farahana kala baxdo waxaana ku leedahay gabariyay maxaa tahay maxaan isku malaysaa markaas ay si lama filaan waxay Yan Ran ugu jawaabaysaa saacan laga bilaabo waxaan ahay hooyada ee hooyo ugu yar Sun Yun markaa waxay soo wacaysaa Joy waxayna u sheegaysaa inay hal isbuuc ay gabadhan guriga ku hayso Yan Ran waxayna u ballan qaadaysaa arrinkaas haday samayso 100 milyan oo lacag ah Joyna hore ayay ka aqbalaysaa arrinkaasi kadibna darawalka ay u sheegaysaa arrinkii qorshaha ayna deegaan ku celin lahayn gabadhani laakiin Haji oo meesha ku gambanid ay arrinkooda maqlayso isla markaas Yan Ran intay u tagtay ay la socodsiinaysaa arrinkaasi Joy markaa waxay daroogaynaysaa koofiga Yan Ran halka darawalka meesha uu ku gambanaya asigoo bar haysto si iyadoo sii jeedo madaxa ugu laco sidaan ay ku xirxiraan meeshan ay ku hayaan laakiin Yan Ran ayay yaraysteen oo sida fudud inay ku qaban karaan ay u maleynayeen Yan Ran ayaa weydiinaysa badla Joy koofiga waxaan miyaa ku jira ay ku leedahay intay indhaha taagaysan wajiga ay u shubaysaa kadibna darawalkii soo cararaya qabanaysaa si jugta ka tumaysa asigana kadibna way ka cararaysaa badla Joy xanaaqsan ayaa darawalka xanaaqaysa kadibna ku dhahayso wax ma tara ayaa tahay ka daba carar laakiin lama soo Yan Ran inay hore ugu taxdirtay furihii baawarka ay qaadan rabeen Haji ayaa waxay u ridaysaa digsiga karkaraayo maadaama ay la safan tahay Yan Ran dhanka kale Sun Yun caawiyeeda ayaa u sheegaya Yan Ran inay baxsatay dhanka airportka xageeda u carartay isla markaas ay waxay ku amraysaa in ciidan daba diro si degdegna gacanta loogu soo dhigo marka waxaan arkaynaa Yan Ran oo garoonka soo gaarayso teamkii Sun Yun ka soo daba dirtana iyagana garoonka soo gaaraan iyada daba socdeen isla markaasna waxay bilaabeen inay garoonka baadi goobaan laakiin waxayna la socon Yan Ran dharkiina iska bedeshay aqoonsi cusubna ay qaadatay kadibna bas ay ka raacday meesha maadaama ay halkan hore ugu gurantay lawyer Lee kadibna uu si aqoonsiga iyo wax u soo diyaari iyo tigidhka baskaba si ay dhanka ay mujaan u qabato aqoonsiga magac cusub oo Busa Mil yiraahdo ugu baxshay sidoo kale wuxuu siinaa kaar bangi iyo lacag cash ah Yan Ran markaa mujaan ay soo gaaraysaa waana halkan sheekada bilowgeeda meesha nooga bilaabatay haddaba qofka soo doonaysa cid kale maahan ee waa wiilkii strawberry-ga keeni jiray Domin isla markaana way aqoonsanaysaa iyadoo ka cabsanaysa inuu aqoonsado laakiin asiga si fiican uma aqoonsanayo haddaba Yan Ran 3 bilood halkan ku badbaadi doontaa waxa kaliya caawin doona aqligeeda waa ay sidoo isku qariso Yan Ran busteejada waxa ka soo doona Domin lawyer Lee ayaan is xigaan ninkani lawyer Lee Yan Ran wuxuu u digay ninkan inay u dhawaato ayna ku sarmo wajigiisa aan u malayso miskiin ninkaas hadoo wax dareemo waa xayawaan ayuu ku leeyahay ay si gooniya isaga jir ayga waan ayaan u naaniisi jirna ayuu ku leeyahay Yan Ran sidoo kale waxay wadataa bistoolad oo Germanka soo siiyay intuu geeriyoon ka hor waxaana ka dhacsiiyay inay tahay nafsadeeda inay ku difaacdo maadaama Sun Wu iyo walaalkeed ay soo weerari doonaan laakiin iyada ma malaysan in qoragan uu yahay qoragii loogu talagalay argudashada Germanka sida darteed ugu dhiibay si uu gabadhiisa ugu argudo sharciga Kuuriyaanka qofkii wax dilana ugu yaraan waxa lagu xukumaa 5 sano haddii Yan Ran qofku disho qoragana 5 sano ayay soo laqaysaa ugu yaraan iyadana marka hore ma doonin inay xabsi gasho laakiin Germanka ayaa wuxuu sheegay wax inuu xalli doono haddii ay wax dhahan xabsi ay geli dooneen laakiin markaan Germanka uu geeriyooday haddaba arrinkaas dhacday oo xalli doono si walba ahaataba Sun Yun iyo Lee doon qorshe kale ay degayaan Abukaati ayaan u soo jeedinayo gabadhan inay guursato odagaani asagoo xanuunsan maskaxdiisana aan joogin sida darteed guurka aan saxiixeen dacwo noocaas inay ka gudbiyaan laakiin Sun Yun arrinkaas ma la fiicno qorshe daciif weeye ay ku leedahay arrinkaasi waxayna doonaysaa Yan Ran dambiyada ay gashay in hor banaanka loo soo dhigo waxayna ku leedahay hadda kor iyadoo yar ay always ka xaday dukaan kadibna waa la xiray oo xabsi ayay soo cuntay sidoo kale hooyada dambiilo weyn weeyaan oo laba mar ay xabsi soo laqday iyadana marka sida qof dambiilo u ahaa haddii aan intaan dadka u soo bandhigno sumcadeeda iyo sharafteeda ayaa halka ku dhamaanay ay ku leedahay sheekadu waxay noqonaysaa gabar dambiile ah ayaa oday xanuunsan oo duq ah hal bil ku soo gashay inay bodyguard u noqonayso beenbeen ah kadibna ay guursatay si lacagtiisa ula wareegto waxaan la yaab si ah in Germanka xanuunsana uuna ogaa waqti inuu haysto sida darteedna lacagtiisa uu ku wareejiyay gabadhani intuu geeriyoon ka hor sidaas ayaan ku noqonaysaa gabar khaanada oo ninkan beenbeen ku guursatay ay ku leedahay dadka dhamna sida ay u arkayaan kadibna warbixinta ay dooraan ku soo daabacayaan isla markaasna dadka waxay isla dhaxmarayaan inay gabadhan wuxuushad ahayd duqo miskiinkan lacag dartiis u guursatay si lacagtiisa u dhacdo commentiyo aad u xun ay dadka baxinayaan Yan Ran markii ugu dambeysay raadinayaan waxay joogtay airportka CC kaamirooyinka in laga baaro oo laga soo saaro waqti dheer ay qaadanaysaa sida daraadeedsan waxay shaqaaleysiinaysaa koox gangster ah si uu soo helaan Yan Ran iyo hooyadeed awal marin aan caadi ahayn oo ballan qaadaysa hadii ay soo helaan Yan Ran markaan dhankeeda duufaan ayaa ku soo socdo mana la socoto habeenkeed ugu horeeyay Yan Ran ee Mujaan waxay koraysaa boorkii dibna waxay fiirinaysaa wadooyinka xaafadda waxayna ka ogaanaysaa wadada in nalal kaliya maahan cid kale inay joogin haddii qof lagu dilayo wadada dhexdeeda cidna ogaa karin oo meesha nafteeda ay qatar u imaan karto dadka xaafadana markaan kulanay isugu imaanay maadaama iskuulka carruurtooda oo qatar ku jiro oo Yan Ran ay dhig rabto kontraadda mulkiilaha guriga la galna ay dhic rabto sidoo kale mulkiilaha qof waqtigiisa gabagaba ah nin lagu magacaabo Jacket ayaan dhismaha doonayo inuu la wareego milkiilahana mar walba wuxuu ku qasbay inuu asiga ku soo wareejiyo guriga sidoo kale macna walba meeshan la keeno uu laaluusha kadibna meesha ayuu ka diraa
sidaa daraaddeed dadka deegaanka waxay isugu yimid maclimadan cusub inay ninkan ka ilaaliyaan laakiin Doomin ayaa shaki ku jira maclimadan ugu jira wuxuuna ka shakaysan yahay heerka waxbarashada ay ka gaartay iyo sababta shaqo magaalada u haystay ka soo ceshiisay halkan u soo aaday oo magaalada aad ku yar ee magaalada ka fog kadibna maamulka iskuulka wuxuu kula talinayaa inay baaritaan ku sameeyso gabadhaani background-ka inta dambana soo ogaato iskuulaad kale soo shaqaysanay dib u raacdo wuxuuna u sheegay baryahan inay soo bateen dadka magacyada beenta isticmaalayo kadibna shaqooyin ku raadsanayaan waxaasi dhanka Young Ran wada walba waxay ku xirtay kaamiro iyo dariiq walba xaafadda dhaxmaro si ay dhaqdhaqaaqa xaafadda halka ugu socoto mobilkeeda iyo kombiyuutarkeeda isla markaasna waxa la leeyahay fiidiyoyada dharka garoonka dharka ku bedelaneysay shanyana markaan kooxdeeda waxay u diraysaa safe boxiga Jermanka bangiga ugu furnaa inay soo fiiriyaan laakiin markay tagaan waxba ma ka arkayaan oo odaga dadkan dhanba ku horeeyay wax walba la socday hore ayuu ugu taxdiray wuxuu leeyahay inay gacanta ku dhigto naagtaani weligiisna cidna dheedheen kuma aaminin wax walba khaas oo gurigiisa ayuu meel khaas kaga dhigan jiray maamulada markaan waxay fiirinaysaa CV-ga Young Ran u keensatay laakiin waxa la yaab la naqanaya qof jaamacad heer sare ka soo qalan jabiyay weliba wadamo badan ka soo shaqeeyay oo waxbarashadiisa heer sare ah sababtoo magaalo yar oo sida camal u soo imaanayo inuu ilmo yiris wax u dhigo wayna weydiinaysaa Young Ran su'aashan jawaabteedana Young Ran waxa hore ugu diyaariyay abukaatihi wayna ugu jawaabaysaa waxayna u sheegaysaa in jawidan rabto inay ku qaadato halkaani maamuladina way ku qancaysaa jawaabtaasi isla markay u bilowday iskuulka shuruucaha u degsan inay uga hadasho ayaa ninkii jaintaan lahayo oo qaylinay meesha soo istaagayo kaasoo macallimiinta Young Ran ka horeysay meesha ka raacayay asigoo dhamaantood la luushay ninkan muddo dheer ayuu qorsheynay inuu gurigan la wareego laba maalin kadibna lacagta ayuu shubi rabiyay sidaan kula wareegi rabiyay marka wuxuu ku xanaaqsan yahay asigoo sida hawshiisa u dhamaatay in macallimo cusub meesha la soo galshay dadaalkiisana bacad hal lagu lesa u noqday maamulada ayuu ku qaylinaya isla markaas ayaa maamulada telefoon u soo dhacayo waxaan halkan ka ogaanaynaa maamulada inay hore u weydiiso dad kale in gabadhan background-keeda la soo ogaado qof warbixin u waday ayaa soo wacay markaani maadaama Doomin uu ku adkeeyay si fiican u soo baartay arrinkeeda gabadhaani waxbarashada heerka sare ay wadatana shaki ka gagal ninkani qofka telefoonka soo wacay wuxuu sheegay inay jirto qof buu Samiil oo jaamacadan ka qalin jabiyay laakiin qofkaas buu Samiil inay 53 sano jirto halka Young Ran da'da 30 ay jirto Young Ran waxay darbiga ka maqlaysaa maamuladii qofkii waxay ku wada hadlayeen isla markaas ay waxay wacaysaa lawyer Lee ayadoo caawin ka dalbanayso sidoo kale maamulada iskuulka waxay ogaanaysaa iskuulka ay ku sheegtay inay hore ugu soo shaqaysay Young Ran waxaan loo sheegay gabadhan waxay u sheegaysaa inay wax jir ahayn Young Ran isla markii goobka ay soo gaaraysa taleefanka ayna ka qabanaysaa oo markaan sheekadeeda waa fashilantay qofka sheegaysa inay ahayn wala ogaaday isla markaas ayaa lawyer Lee wuxuu soo wacaya maamulada iskuulkana waxay la dhalatay lawyer Lee waa walaashiisa wuxuu u sheegay Young Ran qofka ay tahay iyo sababta halkaas u joogto inay caawiso ayuu ka dalbanaya Young Ran markaa maamulada qofka ay tahay waa u cadaatay Young Ran way qaranaysaa wax walba ay tahay markaani waxayna ka codsanaysaa maamulada inay cidna u sheegin 3 bilo soo socotay intay tijaabiyayso qofka ay tahayna ay qariso kadibna labadooda arrinkaas way isku raacayaan laakiin si lama filaana Doomin ayaa irida banaankeeda istaagsanaa sheekadooda dambaysan uu maqlayay kadibna intuu soo galay wuxuu leeyahay maxaa sheegayseen labadooduna isku naxayaan kaliya wuxuu ka maqlaana markay dhahaysay Marwo maadaama muusig banaanka uu ka shidnaa shaki ay ku soo awartay sababta macallimada Marwo loo dhahayo Young Ran iyo maamulada way naxsan yihiin markaani isla markaas ayaa maamulada shaqada dhan bedelaysa kadibna waxay iska dhigaysaa qof telefoon ku hadlaysay iyadoo ka dhigaysa Marwada qofka dhigaysa qofka telefoon kula hadlayso Doomin arrinkan run ayuu iska qaadanayaa kadibna banaanka ayuu iska soo baxaya kadibna Young Ran ayaa maamuladii ku dhahaysa hadii qof ogaada waa qofkan ahay ama qof yaqaan uu imaado jawaabtaas ani kaliya ayaan bixi karo oo aanay xaggayga u soo dirta Young Ran CC camera si ay u soo muuqan meel walba oo camera ku xiran tahay sawir ay ka qaadatay si ay isaga ilaaliso sidoo kale gurigeeda degan tahay rihiisa 12 camera ay ku dhagsatay ayadoo taleefankeeda iyo laptopkeeda kala soconayso dhaqdhaqaaqa meelaha ka jiro si qof ay ka shakaysan tahay halka soo maray iska ilaaliso isla sida Shanyin iyo walaalkeed hawshooda iyo dhankooda ay ka wadaan Shanyin isla booliska ay u tagaysaa kadibna waxay ku leedahay eedadii aabahay ka dhintay ayaa la laayahay meel ay jaani cirib dhigtay marka waa in la raadiyaa iyadoo halkaas uu furaysa kiis qof la laayahay halka walaalkeed 18 milyan oo ku bixinay Young Ran hooyadeed sida loo soo heli lahaa Young Ran hooyadeed saaxiibteed ayna siinayaan lacagta si ay u sheegto meesha joogto kadibna markay ka tagaan way soo wacaysaa waxayna u sheegaysaa inay rag raadinay u yimideen ayna u sheegin meesha joogto in iska taxadirto isla markaas Young Ran hooyadeed way iska dareemaysaa maadaama naagtan roo ay u taqiinay waxayna ku leedahay khaanad qofkaas oo kala ma la aamini karaa mar hore ay sheegtay meeshan joogo waxayna bilaabaysaa alaabteeda inay xirxirto si meesha u baxsato Young Ran hooyadeed goobta waxa kala shaqeynaa kale naagtan waxay basas u tahay abukaati Lee waxayna u sheegtaa dhaqdhaqaaq walba ay sameynayso abukaati Lee markaa wuxuu doonayaa guriga inuu soo tago kadibna gabadhii guriga shaqeynaysa Haji ayuu tagayaa wuxuu leeyahay meel walba inay nadiifisaa kadibna hawsheeda isku wadatay waxay arkaysaa asigoo xafiiska Jermanka galayo kadibna si tartiib ay u soo dabadgalaysaa kadibna way weynaysaa meel uu ka baxay gabadha maadaama ay gabar aad u caqli badan isla markiina way iska baxaysaa goobta kadibna markuu baxo ayay soo laabanaysaa waxayna raadinaysaa meesha uu milaq ku yiri ugu dambeyn miiska ayay ka helaysaa qolkii sirta ah sida loo furo dabadeedna way furaysaa way galaysaa kadibna miiska ayay ku arkaysaa fayl saaran faylkaas ayay waxay ka ogaanaysaa Young Ran meesha ku dambeysay iyo dhammaan waxay sameynayso iyo magac cusub ee baxsatay warbixinta dhamna halkaas ayay ka helaysaa kadibna CC camera ayay waxay ka arkaysaa
darawalkii badla kuwii oo irida istaagsan wayna u tagaysaa kadibna waxay ka codsanayaan inay caawiso ayna la soo hesho meesha Yan Ran joogto si ay 100 milyan shan yan ugu qaataan dabadeedna idoo isdhaafinaysa ay ka ogolaanaysaa dhanka Yan Ran qorsheeda ay meesha iska sii wadataa mana ogo inay meesha joogto la ogaaday ay sirteeda fashilantay ilmihii yar ay barowaysa markaan qaabka la isku difaaco ayadoo boombilihii dinosaurka ka jibinayso kadibna carruurtii ayaa u dhacay maadaama boombilaha ay aad u jeclaayeen isla markaas ay doomi soo gaaray meesha maadaama hore ugu shakisanay gabadha inay macluumaad sax ahayn ayuu isna u qabtay banaanka geynaya si uu su'aalo u weydiiyo halka dadka kale xaafadda badankood inay ka shakisneen gabadhani doomina markuu weydiiyay maxaa saada u sameysay waxay ku leedahay carruurtu waa in la baraa sidii isku difaacaan wax walba ayaan la kulmi karaan kadibna markay soo baxday naag xaafadda degan kuwa ka shakisanaa kamid ah ayaa ku dhahayso laftii ayaan ku siinaya kadibna laftii ay soo siinaysaa taleefankeeda si qarsoodi ay waxay ugu wacaysaa naag kale oo booliiska la joogtay su'aalo ayay ku bilaabaysaa si hadalkooda u dhageystaan laakiin Yan Ran isla markii iska fahmaysaa barnaamijkaani kadibna gaariga ay isaga dagaysaa isla markaasna waxay wacaysaa Layoli wayna u sheegaysaa abukaataha in dadka xaafadda ay ka shakiyeen shakigan uu sii xoogaysanayo isla markaas ay qorshe dejinayaan kadibna naagta ay qabanaysaa waxayna u sheegaysaa inay doonayso inay xaflad samaysato xafladdaas oo soo dhaweyn hatta qarash ku baxayna iyada ay bixin doonto dhanka Layoli guriga ayuu ku soo laabanaya kadibna wuxuu u imaanayaa Haji oo guriga ka maqan taleefankeeda markuu wacna uu dansan yahay waxaana sidoo kale ogaanaya dhammaan alaabada inay qaadatay oo bursooyinkeeda xirxiratay lamana socdo Haji inay qabato dhanka iyo Mujaan si Yan Ran halkaas ugu tagto Yan Ran markaan xafladda ay isku daarinaysaa lamana socdo Haji inay dhankeeda soo hayso isla markaas ay qolka waxa uu soo galay Domin oo sida box strawberry ah laptopkeedana uu shidnaa CC camera dhammaan way ka darnay Yan Ran ma doonays cidna inay ogaato in CC camera meelaha ku xiratay si uu arkina dhankiisa ay soo aadaysa isla markaasna goobta xafladda waxa soo gaaray Haji dadka markay weydiiyaan qof cusub ayaa u socotay waxay ku leedahay busami ay raadinayo Yan Ran ah saaxiibteed ayaan ah ma joogta ay ku leedahay kadibna qolka ayaa loo soo tilmaamayaa Yan Ran si uu mashquulis Domin laptopka inuu arko wax shuminaya iska dhigaysa Domin uu leeyahay wax meesha ka socdo isla markaasna Haji albaabka taagneed ay arkayso halka Yan Ran si tartiib laptopka ay u xirayso isla markaas ay Haji salaamayso halka Yan Ran isku naxaysa in ama kaagayso Haji in halka imaanaysa kama falanayni sheekadii waa dhumanay ay yaacuna markaani haddaba Haji maxay damacsan tahay sababtii halka uu timid meeta maxaan u qarsoon Yan Ran ma khiyaani doontaa booska meesha joogto ma sheegi doontaa Sonyan ma gudbi doontaa waxayna ka sii daraysaa markay Haysu dhanka Domin xagiisa aado iyadoo markaa ka cabsanaysa inay u sheegto qofkay tahay Haysun waa qof aan la qiyaasi karin wax ay sameynayso laakiin ma fashilayso sidoo kale Yan Ran markaa waxay u malaysaa Shanyin inay soo dirtay Haysu lacag darteedna halka u timid laakiin lama filaan ay ku noqonaysaa kadib markay Haysu u sheegto inay halka u timid kaliya inay la noqoto saaxiib kaliya hal shuruudna ay wadato intay halkan joogayso inay qarashaadka iyada ka bixinayso maadaama ay qorsheynayso inay cabaar la joogto Yan Ran waxay u maleynaysaa gabadhan inay ku noqon doonto mixnad laakiin waxay u noqotay garab dadkii xaafadda markaa waxay bilaabayaan xafladii waxay halka u yimideen xafladda kaliya maahan ee waa inay baaritaan ku sameeyaan Yan Ran qofka ay tahay isla markaas ninkii booliiska ahaa ayaa wuxuu bilaabayaa su'aal inuu weydiiyo wuxuuna Yan Ran ku leeyahay gabadhayda ayaa waxay dhigataa jaamacadda gabdhaha ee Yishan adiga dhismooyinkaas waa taqaanaa soo maahan Yan Ran way ka naxaysaa su'aashaas maadaama aqoon saas u lahayn isla markaas ayaa Haysu soo boodayso oo sheekada dhab u wareejinayso si Yan Ran u badbaadiso kadib askarigii su'aashiisa labaad weydiinayo wuxuuna weydiinayaa gabadhiisa wariyada ah ee Paul yiraahdo inay taqaan in kale Yan Ran mar labaad way aamusaysaa isla markaas ayaan Haysu intay soo booday ku leedahay gabadhaas waa laga garanayaa oo gabar wariyad fiican weeyaan maadaama sarkaalka warka labada su'aal uu weydiiyay Haysu inay dhaafsiisay halka ku joogsamayo su'aashiisa saddexaad ayuu weydiinayaa wuxuuna ku leeyahay adigii Haysu miyaa soo dhigatay jaamacadda Yishan la yiraahdo Haysuna waxay taqaanaa xirfadooyin khaas ah maadaama familada lacag leh ay u soo shaqeysay una soo noqotay naani ilmahooda isla markaas ay waxay bilaabaysaa dansiga ee dadka maalqabeenka ay jecel yihiin si dadka u shaqo bixiso malayaan jaamacaddaas inay ka soo baratay si fudud ay halka ugu baabi'inaysaa shakii weynaa ee dadkan qabeen markaan dadka xaafadda badankood way aaminayaan Yan Ran markaan abukaatili ayay wacaysaa isla markiina wuxuu weydiinayaa inay halka joogto Haysu inay joogto ay u sheegaysaa waxayna weydiinaysaa sidii halkan ku soo ogaatay wuxuuna ku leeyahay aniga soo ogaanay inay Shanyi soo dirtay in kale waxayna ku leedahay qorsheena waa inaan bilownaa taleefka inay ugu baxaysaa kadibna sabuuradda ay imaanaysaa waxayna calaamaysanaysaa Domin maadaama qof kaliya ka shakisan oo u dhiman ay asaga u yahay Yan Ran way fahansantahay haddii ninkan shakiga ka bixin in qorsheeda halka ku baaba'ayo laakiin weli lama socoto inay hooyadeeda gacanta ku dhigay Shanyu duqda wuxuu ka rabaa inay u sheegto gabadheeda meesha jirto laakiin maamada waxba kama oga gabadheeda meel ay Jani cirib dhigtay waxaan macquul ahayn in la naqanaysaa asiga sidoo kale naagtii loo yeelay soo daba dhigay naagtan si warbixinteeda u soo gudbiso gacanta ayaa lagu dhigay iyadana labadoodana wuxuu u bootanay inuu dili doono hadii uu sheegin warbixinta uu doonayo laakiin wuxuu xaqiiqsanay inay waxba ka ogeyn waxayna weydiinaysaa sababta uu doonayo wuxuu u sheegay gabadheeda inay guursatay abihiisa duqina uu geeriyooday markaan dhaxalka iyo doonaysa inay la gambiso markaas ay ku leedahay family ayaa banaanay soo maahan gabadheeda xariiftinimada noocaas aniga ayaa ku soo koriyay ku leedahay sidoo kale waxay halka ka ogaanaysaa maamada in naagta la joogtay warbixinteeda gudbinaysay Shanyin waxay ogaanaysaa Shanyu inuu gacanta ku dhigay Yan Ran hooyadeed wax warbixin fiican oo ka helin beddelkeed cunto leh uu siiyay laakiin maamadii Shanyu waxay kula gorgortantay in haddii gabadheeda soo hesho wax faa'iido ugu jiro iyada la sii doono taasoo la yaab ku noqonaysa inay gabadheeda iibsanayso asagana wuxuu qaadanayaa inay ciyaar la dheerayso Shanyin markay weydiisay howlahiisa meesha u marayaan
wuxuu sheegay inuu mar dhow Yanran gacanta u soo geli doono laakiin wuxuu ogeyn fiidiyoo asigoo shaqaalaha dhibaateynaya in warbaahinta loo gudbiyay Abukaata Lee uu diray Shanyin ayaana tusinayso Shanyin arrinkan aad ay u careysantahay maadaama sumcadeeda ay hoos u dhimayso qofka xadgudubka uu ku sameeyay inuu yahay qof shaqaalaha oo haweeney uur leh fiidiyowgana dadweynaha ayuu ku kicinaya taasoo kamaniga dhibaato dhaqaale u keenayso kadibna dharbaaxsha ay ugu jiidaysa asagana wuxuu ku andacoonayaa arrinka iska fudud inuu yahay gacan yaraheedan oo dhameyn karo dhanka kale Haysu waxay bilaabaysaa inay beeritaan ku samayso qolka Yanran deganeed kadibna sabuuradii dadka ay ku qoratay ay arkaysaa waxay sidoo kale soo bixinaysaa boorsadii sidii beeritaan ugu samaysay iyadana login boorsada ku xirnaa waxay ku furaysaa saddex nambar ee u horeeya ee Abukaata Lee dabeedna boxka ay ka soo bixinaysaa ee lacag ku jirtay lacagtii ay urinaysaa ka fikiraysaa arrimaha in la faraha la gashay labadii walaalaha marka Abukaata ay weerar ku qaadeen ayagoo booliiska dacwo ugu gudbiyay booliiskan halka waxay u yimideen Abukaata Hiiraan isla markaas ayaa goobta waxa soo gaaray labadii walaalo Shanyin markaa waxay bilaabaysaa inay Abukaata dadaansato waxaana ku leedahay kawaran hadii lagu xiro wax isdaba marin wargeysyada dhan lagu daabaco wax lacagna isku difaacdana ma haysatid waxaanu ku leeyahay tabaan lacag ma haysto laakiin nin go'aan la ayaan ahay ayada ku dhaysa daba Yanran meesha joogta sheeg kaliya intaas lee ka rabnaa haddii sidaan noo sameeysan halkan ayaa ku soo gabagabeynayna waxaanu dham wuxuu ka diiday arrinkaas kadibna booliiska ayuu raacaya si su'aal loo weydiiyo isla markaasna badla kuwii iyo darawalkii ayaa guriga ku soo laabanaya maadaama hore Abukaata ugu ceyriyay si ay hoos Shanyin u dirsato meesha uu sii wadaan Abukaata Lee inta saldhig loo sii wadayo si hoos message ugu diraya Yanran asigoo ku dhahay qorshaheena labaad waa inaan ku dhaqaaqnaa isla markaasna Yanran qolka ay soo cararaysaa dahmo ka dhamay inay xirxiraysa ayadoo markaas soo baxsanaysa box yar oo ku jiray pistoolad waxayna ka soo baxsanaysaa USB meesha ku jiray waxayna doonaysaa magaalada inay aado gaarigii Domin iyo asxaabtiisa ay hor u qaateen markaas ay mooto yar oo meeshii til qaadanaysaa si magaalada u gaarto laakiin idin ma filin Haysu inay daba joogto idana isla markii magaalada tagto computer iyo tigidhka USB ay ku xiriirinaysaa waxayna ka kicinaysaa emailkii lawyer Lee waxayna email ugu diraysaa gabadhii wariyada ee file lahay ee ninkii booliiska ahaa dhalay isla markaasna wariyadii emailka ayaa soo gaaray emailkan wuxuu sheegayay warbixin ku saabsan Shanyu inuu garbaniyo private oo dibadda laga leeyahay uu la xiriiray si uu shirkiisa ugu iibiyo company-ga sidoo kale waxa la socda codad asiga laga duubay oo caddeyn dheeriya u ah Shanyu fiidiyowga hore gabadha uur kale u dhibaateynaya uu iska xaliyay laakiin marka aan warbixintan dheeriga ah dhibaato weyn ayay ku noqonaysaa maadaama company-ga khiyaano weyn u geysanayay codkiisana wuxuu cadeynayay in company-gan sababta uu gaday ay tahay walaashiisa oo waxba ganacsi aan ka aqaanin warbixinta isla markii warbixinta la soo saaro Shanyin aad ay ugu xanaaqaysaa maadaama ay walba walaalkeed ay ku kalsooneen iyo si jirtay wax walba sameynaya go'aankeeda ahaa markaan walaalihii bamba ayaa la dhaxdhigay qorshahooda labaad ayuu ahaa Yanran iyo Abukaatihi qorshahana asalkiisa Yanran ayaa keentay Jermanka inuu soo jeedisay si labadan walaalaha loo kala tuuro markaas inuu dagaalka macaanayo qorshahana waxa la dejiyay Jermanka inuu intoon dhiman ka hor laakiin Yanran markaan waxa u maleysay wax walba inay gacanteeda ku hayso wax walbana sidii la rabay u socdaan laakiin qatar ayaa ku soo wajah habeenkii iyadoo la casheynaya Yanran timaheeda bin gadaal ku xiranaysa isla markaas ayaa Domin wuxuu soo xasuusanaya Yanran markii bodyguard-ka ahayd ay sii socotay inay isla iyada tahay qofka guriga Jermanka ku arkay inay iyada tahay isla markaas ayuu iyadoo soo socto ku wacaya Yanran waa adiga qofka newska lagu soo qorayo Soomahan isla markaas ay iyadoo makaagsan soo jeesanaysa kadibna waxay ku leedahay waa aniga Domin inkastoo ogaado qofka ay tahay haddana ma doonayo inuu fashilo laakiin wuxuu ku leeyahay si degdeg ah waa inuu ugu baxdaa magaaladani halka iyadana ay ku dhahayso meel kale aan ma garanayo markaan waxaan arkay Abukaata Lee in saldhigga booliiska laga soo daayay isla markaas ay Yanran soo wacayso waxayna weydiinaysaa Domin meesha uu ka jilcan yahay wuxuuna u sheegayaa inuu kaliya ka jecel yahay wiilkiisa subaxdii xigtay Yanran toos ayay waxay ugu imaanaysaa Domin kaliya uma caddeeyso inay bixinin oo toos ayay waxay u raacaysaa beertiisa strawberry-ga uu ku beero ayada doonaysa inay caawiso ayaga tan kale waxaan arkaynaa Sonwu ee barku si carraa isagoo baxsad ah kana baqanayo walaashiisa inay dhibaato gaarsiiso laakiin walaashiisa Sunya wardiyada ayaa gacanta ku dhigay intuuna baxsanin isla markaas waxaan arkaynaa maamulka sare ee company-ga oo wada shiraya xafiis ku shirayaan kana shirana arrimaha Sanyang iyo walaalkeeda laakiin waxay la socon Sanyang inay mikrofon meesha ugu qarisay in dhageysanayso waxay sheegayaan Sanyang markaa waxay go'aansatay maamulka company-ga inay la wareegto marka waxay qorsheynaysaa wax walba ka hor imaan karo inay iska leexiso xataa hadduu noqdo walaalkeeda markaas ay waxay la kulmaysaa wariyada waxayna siinaysaa USB drive oo ay ku jiraan cadeymaha qaar ka mid ah maamulka sare ee company-ga dambiye ay galeen waxayna ka codsanaysaa inay TV-ga soo saarto dambiyadoodana cadayso Shanyin markaa walaalkeed waxay ka dhigaysaa xabsi guri halka asigana si qarsoodi oo wacay qoladii gaangistarada isla shaqeynaya kadibna uu caawinka u dalbanaya inay meesha ka saaraan dhanka kale Yanran ilmihii ayay wax faraysa si qaas ah inay u dhawaanaysaa Domin wiilkiisa cunto ayay siinaysaa Domin markaa wiilkiisa sidii isku fahmeen naxariis ayaa galayso oo iska dhaafaya iyada weerarkan uu ku joojinaya isla markaas ayaa banaanka iskuulka waxay ka maqlayaan qayl jantay markaan koox ay u soo watay si uu xoog ugu wareego dhismaha iskuulka wuxuuna isla markaas ka bilaabo dhismaha qorshaha uu ka lahaa meesha isla markaas ayaa banaanka waxa soo baxaya maamulada iskuulka waxayna ku sigaysaa inay shil ku gasho cagaftii halkan Yanran ay ka badbaadinayso Yanran dharka ayaa ka jeexmay markaasi Domin intuu xanaaq ayuu siligi ka jarjaraya isla markaas ayaa jantay booliisku wacay asoo Domin ku eedeynaya inuu weerar ku soo qaaday hadduu booliisku imaado Yanran siligi booliiska u geeyo waxay baaritaan ku sameynayaan aqoonsigeeda waxayna halka ka ogaanayaan magaceeda saxda ah taasina Yanran baxar ay gelinaysa isla markaas ayaa maamuladu waxay wacaysaa lawyer Lee Abukaata inuu sheegaysa arrinkaasi si uu degdeg u soo gaaro meesha Abukaatina markaan xagga iyo mujaan u soo qabanaya
si uu Yan Ran u caawiyo laakiin wuxuu la socon Sanwoo inuu indhaha ku hayay Sanwoo soo abukaata soo raacay iskuuska markii gaaraan ayaa baawur cad hortiisa soo jarayo kaas oo wadada ka xiray dhanka kale saldhigga booliska Yan Ran ayaa waxa lagu codsanaya inay soo bixiso aqoonsigeeda isla markuu arrinkeeda fashil marba ayaa haji saldhigga booliska soo gaarayso kadibna booliska ay sidaa ku mashquulinaysaa ugu dambeyn abukaatili ayaa soo gaaray saldhigga booliska asagoo Jantan ku amarsanay dacwadii Jantan si fudud ugu soo gabagabeynaya halka Sanwoo ciidamadiisa ay leeyihiin Jan iyo cirib abukaatili meel u dhig magaalada dhexdeeda ka raadinayaan ayaa Sanwoo wuxuu arkayaa Yan Ran oo taagan saldhigga booliska hortiisa Yan Ran iyo Doomin way soo raacayaan xaafadda inay soo aadayaan laakiin waxay soo marayaan supermarketka si alaab ugu gataan isla markii ka degtaan kooxdii Sanwoo ayaa ugu daba imaanaysa supermarketka Yan Ran markii aragtay iska qarinaysa iyadoo ka cabsanaysa naagtii supermarketka iska leeyahay dhibaatayaan ay istusaysa kadibna way ka cararaysaa Doomin gaariga ayuu shalareynaya si ay ugu baxsadaan goobtaasi laakiin ugu dambeyn waa la hareereynayaa balse labadooda xirfadlayaal dagaal waa iska celinayaan inta uu dagaalka socday Sanwoo wuxuu sheegayaa 2 bilyan oo lacag inuu siinayo qofkii Yan Ran ka takhaluso arrinkaas dagaalka si xoojinayo Doomin wuxuu ku dhaawacmay isagoo gabadhan badbaadinayo ayada lafteeda way kala dhaawamaysaa laakiin ugu dambeyn booliska ayaa goobta soo gaaray sida ay ku badbaadayaan halka Sanwoo goobta oo ka cararayo intuu dhex sii marayna gaarigiisa shil galayo kadibna Doomin iyo Yan Ran ay soo wadayaan wuxuu keenayaa xeebta asagoo u sheegay inuu ku faraxsan yahay inay joogto wiilkii Juwan hatta uu ka helay uu ku leeyahay iska joog halkaani taasoo ka dhigan dadka deegaanka dhammaan inay ogolyihiin gabadha inay meeshan joogto halka iyada ay doonayso inay goobtan isaga tagto maadaama ay ka cabsanayso dadka xaafadda inay dhibaato geyso dhanka kale Sunyan ayaa waxay qabanaysaa shir jaraa'id waxayna u sheegaysaa wariyaasha in walaalkeed Sanwoo uu isku dayay mar dhow inuu istiro cudur dharkan dhimirkan uu hayo waqti xadirkan la daaweynayo sida daraadeed ay waajib ku tahay in booskiisa buuxiso kambaniga la wareegto kadibna shirka ay isaga soo tagaysaa ugu dambeyn waxaa arkaynaa Sunyan inay gacanta ku dhigtay Yan Ran hooyadeed Sunyan qorshaheeda qorshe ciyaar maahan haddaba Yan Ran hooyadeed maxay ku sameyn doontaa marka waxaan arkaynaa iyadoo lugaha ka xirtay kadibna soo laalaadisay Yan Ran hooyadeedna way baryootomaysaa maadaama aad loo ciqaabay waxayna ku baryootomaysaa in nolosheeda loo sii daayo haddii askariga fasaxdaan gabadheeda xitaa waa idin dilay ku leedahay isla markaas ay arkeen Yan Ran oo joogto fasalkii iyadoo booliska u keenaya hooyadeed dadkii dhammaan halka joogna aad ay u yaabayaan ama kaagayaan qaasatan Yan Ran hooyadeed baa dhaawacyo xun ayaa ka muuqday dadka hortoodna waxay iska dhigaysaa qof dhibaataysan oo la soo dhibaateeyay laakiin dadka marka kala yaacaan oo labadooda ay kaliya naqdaan wajiga iyo bedelanaysaa Yan Ran hooyadeed mar hore ay xiriir u jarto maadaama hooyo xun ay ahayd halka hooyada wax saxaba ay u arkin ay u maleysay Yan Ran il dhaqaale oo markay wax u baahato weerar ay ku soo qaado Yan Ran idoo caraysan iskana faham qofka soo diro hooyadeed ayay waxay ku leedahay Sunyan ayaa ku soo dirtay Soomahan laakiin hooyada arrinka way beeninaysaa waxayna tusinaysaa dhaawacyada la soo gaarsiiyay waxayna ku leedahay Sunyan ayaa dhaawacyada ay soo gaarsiisay soo diraysaa kadibna Yan Ran qolka markay ka baxday isla markii message qof u diraysaa Yan Ran oo la hadlayso Doomin iyo wiilkiisa ayaa hooyadeeda soo qabaysta arkayso kadibna sawir ay ka qaadaysaa waxayna u diraysaa Sunyan waxayna u maleysay waxay sameynaysaa Yan Ran inay ogaar karin laakiin Yan Ran meesha ay kamera ugu qarsato wax walba ay sameynayso meesha ay ka duwanaysay dhanka kale Sunyan sidii uu guuleystay kursiga kambaniga la dooranayo ayaa waxay kulan khaas u qabanaysaa saddexda director kadibna shaashada ay waxay u daaraysaa sirahooda qarsoona si ay u rakaatayso sidoo kale isla goobta ay waxay keenaysaa ilmahooda ay soo ciqaabtay markay arkeen ilmahooda la soo jirdileen jilbaha iyo dhulka dhiganayaan waxayna ka baryayaan inay iska fasaxdo kadibna ay garabkeeda naqanayaan dabeedna saxiix ay ka qaadanaysaa halka Sanwoo uu miraq yiri Sunyan ay garaneen meel uu Jan iyo cirib dhigay markaas ay kooxdeeda u diraysaa si ay u soo helaan meel alla la meesha joogo laakiin kama warqabto Sanwoo in isbitaalka walida la geeyay oo nageeyay abukaatili haddaba abukaatili sidoo ku geeyay Sanwoo isbitaalka walida waxayna ugu soo gashay kadib markuu Jan ka soo laabanayo wuxuu arkayaa shil ay soo dhax ku galay halkan ku suxsan sidaas ay ugu faa'iideysanay oo nageeyay asagoo isla saxiixeeda koobiyay kana dhigay inay iyada meesha geysay abukaatili Sanwoo dabin ay u dhigowha isla markuu saxiix walaashiis arkano uu xanaaqaya ninka uu iska aaminaya maskiinkani abukaatili wuxuu ku codsanayaa inuu siraha uu ka hayo Sunyan oo ku soo wareejiyo kadibna uu ka caawi doono inuu isbitaalkan ka baxo laakiin Sanwoo dheedheel wax ku qaadamay waana ku kacaysaa isla markaas ayuu abukaatili meesha isaga tagayaa Sanwoo noloshiisa ayaa loo celinayaa Sanwoo markaa qolka uu ku jiro kuma adkaysan karo ugu dambeyn wuxuu codsanayaa inuu abukaatili la kulmo abukaatili dib ay ugu soo laabanaya si ay u kulmaan isla markaas ay wada hadlayaan tiimkii Sunyan goobta soo gaarayo markay arkaan way ka cararayaan abukaatili ayaan la baxsanay Sanwoo kadibna wuxuu weydiinaya cadeynta goobta uu ku hayo wuxuuna u sheegay inay gurigiisa taalo markay kalanta shidaal tagaan ayuu wuxuu leeyahay suuli ayaan aadayaa dabadeedna cabaar markuu maqnaado abukaatili uu dareemaya inay wax qaldan yihiin kadibna uu soo raadinaya laakiin isla markii uu Sanwoo ayaa weerar ku soo qaaday baawurkiisa inuu la baxsanaya laakiin abukaatili hore ayaa arrinka ugu taxadira maadaama telefoonka iyo baawurka GPS uu ku xirtay uuna halka kala soconaya meel alla meesha tago kadibna locationka GPS-ka ayuu soo raacaya wuxuuna imaanaya dhismahan laakiin inta waxba sameyn Yan Ran ayuu wacaya wuxuuna u sheegay dagaalkooda mar hore inay ku guuleysan doonaan haddii uu cadeynta ninkan ka helo Sanwoo halka iyadana u sheegaysa hooyadeed inay halkan timid waxayna sidoo kale halka ka ogaanaysaa inuu hore u ogaa in hooyadeed Sanwoo gacanta ku soo dhigtay subaxdii xigta waxaa arkaynaa Sunyan oo furayso box kadibna ka soo bixinayso warqad uu ku qoran yahay telephone number kadibna qofka ay wacaysaa waxayna weydiisanaysaa inuu isxaan u sameeyo qofkii aan la garanayay waxayna u soo dirtaa sawirka Yan Ran iyo sawir kale oo haweeney gubanayso halkan waxaan uga cad Sunyan inay doonayso Yan Ran in nolosha lagu gubo haddaba su'aashu waxay tahay Yan Ran maxaa ku dhici doono subaxdii xigta xaafadda waxaa ku soo biiray nin aan u malaysan maskiin oo hintinayo oo noqon doono darawal baska carruurta maamulada Yan Ran waxay u sheegaysaa in qofkan uu ahaa
darawal hore kambaniyo badan oo ka soo shaqeeyay intuuna dhaawacmin ka hor Yan Ran maadaama ninkan ay ka shaqaysan tahay CV-giisa ay qaadanaysaa kadibna kambaniga u dambeeyay ay wacaysaa ayadoo xaqiijinayso laakiin waxay u sheegayaan xogta 5 sano oo u dambeysay shaqaalaha kaliya inay hayaan oo 5 sano wixii ka horeeyay inay gacan ku haynin halkaasiga 7 sano ka hor ay ugu dambeysay ama warqadda uu qorantaa 7 sano inay ugu dambeysay Yan Ran markaan idoo carruurta soo wada ayay waxay ogaanaysaa sidoo kale in Nicky Janta ay dhankiisa problem kale uu ka wado oo koox cusub oo shaqaalaha uu keensaday kooxda mid kamid ah nin dheer ayay ka shaqeynaysaa indhaheedu ninkaas ay qabanayaan maadaama Yan Ran nafsadeeda u cabsanayso qof walba xaafad ku soo kororto oo qatar ku noqon karo kadib qolkeeda markay ku soo laabatay ay arkaysaa hooyadeed oo lacagta tirinayso hooyadeeda Yan Ran markay waxay ka codsanaysaa 10 milyan inay siiso bil walba si ayna u sheegin qofka ay tahay dadka xaafadda haddii kale sirteeda ay fashili doonto isla waqti xaadirka Nicky Shan uu ahaa wuxuu soo wacayaa Shanyin asagoo u handaday kadibna ka codsanaya inay shirkiisa dhammaan u soo taxawisho oo shirarka uu leeyahay lacagiisa ay soo siiso wuxuu u sheegay qol hotelka uu ka degan yahay wuxuu ku leeyahay kaliya waa inaad timaada haddii ay maadiidana fiidiyowga ayaa tuuraya ayuu leeyahay wuxuu soo diray screenshot oo cadeen u ah inuu fiidiyowga haayo warkiisna uu ciyaar ahayn sheekadan dhan Abukaati uu maqlayaa maadaama uu hor u jabsaday ninkan telefoonkiisa Abukaati markan wuxuu ku qasbay inuu ninkan soo helo intayna Sanyon imaanin si uu cadeynta asiga uu la wareego marka hore isla markaasna Yan Ran ayuu la socodsiinay arrinta sidoo kale Yan Ran waxay ogaanaysaa kaamirooyinka meelaha ku xiratay inay badankood ay qadka ka baxayaan qofna uu jibinayo isla markaasna goobta uu dambeeyay qofkaas jooga ay soo aadaysa haday timaadana way weynaysaa laakiin waxa uu malaysaa qofka inuu meel daawanayay uu iskaadgaad ku haayo isla markaas ay meel ku sugay markay soo gaartay uu gadaal ka soo weeraraya intii isdagaalayna haarayo waxay ku arkaysaa inuu ku leeyahay dhanka bidix ee xabadkiisa isla markaas asigoo ceejo ku dil rabay ayaa doomin ka soo gaarayo ninkana wuu baqaya kadibna goobta ayuu ka cararaya labadoodna way cirsanayaan laakiin ma qabanayaan oo meel ku baxay weynayaan goobtan ay taagan yihiin oo goobtii shaqaalaha ku meel gaarka ay deganayeen oo Janta uu keenay taasoo shaqo ka gelinayso inuu shaqaalaha ka mid yahay qofkan soo weeraray markaas ay waxaan arkaynaa sidoo kale Heiji inay meel goobta ka dhaweeyay waxyaabo ay ku hadlayaan dhageysanaysay Yan Ran guriga markay ku soo laabato waxay sii fiirinaysaa kaamirooyinkii wax ay duubeen markaas ay si lama filan waxay ku arkaysaa Heiji oo warkooda dhageysanaysay luqna ku gambaneed dhanka kale Abukaati wuxuu soo gaaray hotelkii isla markaasna wuxuu arkayaa waardiyihii Shanyu si tartiib ah inuu duraacayaa Shanku wuxuu arkayaa qofka oo meesha soo gaaray inuu yahay waardiyihii walaashiisa in halka imaaneen aad inuu u caroonaya arrinkaani maadaama bodyguardadii banaanka ay taagan yihiin albaabka banaankiisa Shanyu markaa meesha ayuu ku xaniban yahay mana garanaysi oo u baxo isla markaas ayaa loo yeelay caawinayo gambaleelka digniinta dabka ayuu daarayaa asigoo ku qaylinaya dab ayaa meesha ka kacay kadibna dadka dham ayaa ayagoo naxsan qolka ka soo baxayo Shanyu arrintan ayuu ka faa'iideysanaya kadibna meesha ayuu ka dhuumanaya isla markaas Abukaati oo ka daba carar isdhahay ayaa qoladii gaangistarada madax ku dhufanayso wayna afduubanayaan maalintii xigtay waxaan arkaynaa Doomin oo weydiinaya shaqaalihii kale inay garanayaan qof har ku leh xabadka bidix qaybta sare laakiin cid uga garanaya tiraha uu weynaya habeenkii xigta isla ninkii kaamirooyinka jibinaya soo laabanayo laakiin waqti xaadirkan Doomin iyo Yan Ran ayaa labada gees ka soo galganayaan oo waa la qabanaya gees ayaa laga istaagaya markay qabtaan haartii ay ka fiirinayaan kadibna way ka weynayaan waxayna ka ogaanayaan in ninkan shaqaalaha ka mid yahay oo Jentai wuxuu sheegay qof inuu online kala soo xiriiray kadibna lacag u siiyay si uu kaamirooyinka u baabi'iyo halkii kaamirana 50,000 oo u ballan qaaday ma garanaysa markay dhahan wajigiis kuligay ma arkin ayuu ku leeyahay dhanka kale waxaan arkaynaa Abukaati oo u xirxiran qoladii gaangistarada ahaa waxayna weydiinayaan Sanwu meesha uu ku dambeeyay maadaama Sanwu uu lacag ku lahaayeen ayaga balanta waqtigeed inuu ku bixin la soo dhaafay isla markaas ay Abukaati wuxuu u soo bandhigayaa deal ah inay u soo qabtaan Sanwu naftiisa haddii ay u soo qabtaana uu sii doono 100 milyan 50 milyan hadda uu hormari doono isla markaas ay dealkaas ka helayaan isla markiina way sii deynayaan Abukaati isla markuu lacagta u shub isdhaayeen Yan Ran ayaa waxay u soo diraysaa sawirkii Nicky Jiiska ahaa oo darawalka baskana ahaa ayadoo doonaysa inay xogtiisa u soo ogaado kooxdii gaangiska ahayd ayuu tusinayaa wuxuu ku leeyahay 100 milyan oo kale waa ninkan haddii arrin faarihiisa ogaataan Sanwu markaa wuxuu diyaarinayaa qorsheynaya inuu meesha ka baxsado nin odaya ayuu tagayaa ku dheeray baasaboorada fake sida loo sameeyo wuxuu ka codsanayaa 3 maalin gudaheed inuu u sameeyo baasaboor si uu wadanka ugu baxsado maalintii xigta Heiji oo socotay ayaa waxay kama u arkaysaa darawalka duudkiisa oo haara ku yaalaan isla markaasna waxay u cararaysaa xagga Yan Ran si arrintan u la socodsiiso laakiin Yan Ran ayaa su'aal ka horkeenaysa oo ah sababta noo soo daba raacaysa maxay tahay mar walba Heiji iyo Yan Ran inay ka shaqaysan tahay aragto way ka tala baxaysaa inay arrinka u sheegto intay fiirsay ay ka tagaysaa isla markaasna waxay raadinaysaa darawalkii baska Heiji isla markaas waxay message u diraysaa harfaanka gaadgaada oo jeclaa ayadoo ku dhahaysa 5 daqiiqo gudaheed igu soo wac maadaama ninkan nafsadeeda ugu baqayso isla markaasna darawalka waxay weydiisanaysaa inuu guriga u qaado waxayna isku dayaysaa inay su'aalo weydiiso si ay baaritaan ugu sameeyso inuu ogaato xogihiisa laakiin lama socdaan ninkan darawal caadi inuu ahayn uu yahay nin dilaa ah oo Shanyan ay soo dirsatay qofka loo soo diray inuu dilan inay Yan Ran tahay qorshihiisuna waa Yan Ran inuu nolosh ku gubaa Abukaati ayaa Yan Ran soo wacay kadibna u sheegay inay koox gaangiska ahaa ninkan soo ogaadeen xogta laga hayo xog ka duwan ay soo ogaadeen waxayna ogaadeen ninkan dambiilo weyn inuu ahaa ugu dambeyn runtii qarsooneed ayaa banaanka timid
Yan Ran markaan waxay ogaatay ninkan inuu soo diray inuu dilo Shan Yan ee soo dirtay Yan Ran darawalkii ay message u diraysaa si uu ugu kulmo 9 habeenimo qolkeeda markaan waxaan arkeenaa darawalkii oo soo qaadanaya gas kadibna qolkii soo galay Yan Ran joogtay isla markaas Yan Ran oo meesha ku sugaysa ayaa qoray ku qabanaysa bistooladii madaxiisatay maadaama ninkan dilaa qatar uu yahay xirfadle dilaan oo ahaa isla markii uu boobsiinayo Yan Ran qoragay ku tuuraya cirbada inuu ku duraya soo xayso kadibna uu xirxiraya gas ayuu guriga ku balbalaya si uu u gubo isla markaas ayaa hiji goobta ku soo gaaraysa oo badbaadinaysa Yan Ran madaxna ku dhufanaysa darawalkii ayadoo isdhaysay Yan Ran ka fur xariga ayuu darawalkii soo kacaya kadibna midi ayuu hool leeyahay oo hiji halka ayuu midi ku gelinaya hiji oo sakaraada ayuu meesha ku tuuraya hijina markaan inoo sheegay in dhamato ma garanayno isla markaasna bistooladii ayuu soo qabsanaya kadibna Yan Ran ayuu madax u aadinaya Yan Ran bistoolad madax lagu hayo ninka dilaayana uu ku hayo isla markaas ayaa waxa goobta soo gaaray Doomin ninka ayuu la dagaalamaya kadibna bistooladii ayuu ka qaadaya isla markaasna booliiska ayaa goobta soo gaaray ninkan uu ku cararaya goobta haddaba waxa isbeedin mudan Shan Yan iyo ninkan dilaaga xiriirkooda halka ku soo bilowday xiriirkooduna waxa ku soo bilowday kadib markii Shan Yan xabsiga tagtay si ay u jeegarayso dambiilayaal xabsiga lagu hayo waxa ka qaldan dhimirkooda cilmi baarisna uu sameeyso markaas ayaan waxaan arkay inay ka dooranayso ninkan dilaaga ah ninkan hooyadiis ayuu soo dilay sida darteed ayaa lagu soo xiray isla markaas ayay waxay matalaysaa hooyadiis inay tahay iyadoo adeegsanayso hadallo qalafsan ee hooyadiis u adeegsan jirtay isla markaas ninkii dilaaga way ku kacaysaa xasuus ayuu galaya isla markiina ciijo ayuu ku qabanayaa inta laga fujinayo ay dhagta waxay u sheegaysaa inay ku taageersan tahay inuu hooyadiis dilo maadaama qof aad u xun ay ahayd ayadoo ula jeedin ninka in maskaxdiisa degto maskaxiyan uu adeegsato taasoo ka dhigaysa noloshiisa qofkii ugu horreeyay oo dhankiisa ahaado dambiyadu sameeyna waa ku saxsantahay dhaw sidaas ayuu dambiilahan damigin Shan Yan uu soo dhacay oo qof walba doonaysa waqti xaadirkan inay ka takhalusto asiga u adeegsataa waqti xaadirkan Yan Ran gargaarka caafimaad ee u baahneed waa loo fidiyay halka Heiji wili ay kooma ku jirto xaaladeeda caafimaadna ay fiicnayn Yan Ran markaan waxay garatay inay halkan si joogto inay waxba u soo kordhinaynin caawinta abukaataha kaliyana waxba u sameynaynin isla markaas ay qorshihii meesha ka lahayn ka bedelaysaa waxayna go'aansanaysaa inay halkan isaga tagto Wujan magaaladina dib ugu laabato Doomin arrinka markuu ogaado waa maray baxdaba Heijina waxay keenaysaa isbitaalka ugu qatarsan ay sawir ku yaalo halka Wujan ilmihii joogay ay u darayso macluumaad heer sare ah waqti xaadirkan Yan Ran waxay qorsheynaysaa enerjigeeda iyo tamarteeda dhammaan isugu geyso sidii Shan Yan iyo walaalkeed meel u saari lahayd waxayna markaan go'aansatay inay foolka fool u wajahdo abukaatili ay waxay ku amraysaa si degdeg inuu cadeynta Shan Yan ku soo helo sanguun oo ka soo qaado Yan Ran markaan waxay go'aansatay inay warbaahinta isku wacdo kadibna ay u sheegto inay chairmanka xaskiisa tahay arrinkaas uu sababi doono inay gasho nolol cakiran oo jaha weerarkeeda wadato haddii arrinkaas cadeysana Shan Yan waxa ku adkaan doonta si fudud inay gabadhan ku soo weerarto shirkii jiraayna waxay balamisay subaxdii kale halka Shan Yan iyadana qorshaheeda ay ku qasi lahayd ay geeskeeda ka wadato subaxdii xigtay Yan Ran ayaa dadka hortooda ka qaranaysa inay chairmanka xaskiisa tahay waxayna sidoo kale halka ugu dhawaaqaysaa inay Shan Yan iyo walaalkeeda falalka bahalnimada ay sameynayaan ay ka hortagi doonto dagaalna ila galayso waqti xaadirkan waxay ka bilowday inta Yan Ran shirkeeda jiraayid wadatay ayaa Shan Yan waxay galaysaa wiishkana waxa saarnaa nin waxay kadibna ninkii ay soo deganayo kadibna Shan Yan oo qorta ka dhaawacan oo dhiig ka socda ayaa ka soo degaysa idana banaanka ayana ku soo dhacaysa isla markaas dhacdadan eedeeda ayaa dusha loo saaray Yan Ran maadaama shirka jiraayid ay ku sheegtay inay Shan Yan ka hortagayso sheekadan waxa uu sii diraysa kadib markuu ninkii wax dhibaatada geystay oo saldhigga booliiska isku dhiibo una sheegay inay soo adeegsatay Yan Ran asagoo cadeemo wato ninkan hawshan waxa uu soo diray Yan Ran hooyadeed ay lacag u dirtay si ay ugu tagto meesha lacagtaas ay soo dirtay in cadeen ugu dhigayaan dhacdadan kadib Yan Ran hooyadeed message ay waxay u soo diraysaa Shan Yan ayadoo ku dhayso hawshaada waa ku fulinay isla markaasna Shan Yan 500 milyan ay u diraysaa iyadana Yan Ran hooyadeedna lacag darteed gabarteeda xitay waxay diyaar u tahay inay disho oo muhiimadooda in nolosha waxa waaye in lacag hesho dhanka kale abukaatili ayaa waxa soo cay kooxda gaangistaradeed waxayna ku sheegayaan inay warbixin u hayaan meel ayana ku balaminayaan goobtii lagu balamiyo markuu tagan wuxuu ogaanay in dabin loo dhigay Shan Yan oo arkaya meesha ku sugaysay Shan Yan qorsheeda markaan wuxuu yahay Yan Ran qof caawis inay weyso kadibna baxar ay dhaxda ka gasho isku day dhan walba ayay isku dayaysaa si abukaata u wareejiso Yan Ran haddaba su'aasha meesha taala ayaa waxay tahay Yan Ran badbaadi kartaa iyadoo caawin ka helayna abukaatili walba ahaato Yan Ran waxa laga wacayaa saldhigga booliiska si su'aal loogu weydiiyo kiiskani dambiilahan nin kale maahan waa ninkii hooyadeed qabay oo adeerkeed ah yaraanteedan dhibaatay jiray wuxuuna isku dayay Yan Ran inuu dambiga dhumdush ka saaro laakiin wuxuu la socon Yan Ran inay cadeyn wadatay hooyadeed waxaan dhamar qorsheynaysan naqd laga duubay waxayna arkaan u xil saaratay hooyadeed naagta saaxiibteed ahayd maadaama iyadoo ag joogto waxaanaba ay sameynaysay kadibna iyada ay u duubtay cadeynta ay soo bandhigtay darteed ayaa si ku meel gaar loo deynaya Yan Ran laakiin kiiska uu socdaa mar walba uu wici karaa booliiska isla markii ka soo baxday abukaatihi soo istaagay meesha abukaatini qolada gaangistarada ay ku soo baxsaday kadib markii xirxireen ayuu koolada intuu derbiga iska jaro as meesha sarneed oo isaga dhameystir inta kale ayuu taleefkiisa intuu qaato ayuu daaqada ka boodaya kadibna bluetooth ka taleefkiisa ayuu gaarigiisa u isticmaalaya sida ay ku soo baxsanaya halka Shan Yan uu qorsheynay inuu wadanka ka baxsado kadibna wuxuu tagayaa in dadka tahriibiyo ninkii ayaana ka codsanaya 30 milyan Shan Yan kaararka bangigiisa dhamaan waa la xanibay oo wax lacag uu ka baxsan kara ma jira sida darteed Yan Ran ayuu soo wacay kadibna wuxuu ka codsanay in lacagta ka bixiso dhiil ayuu la galayaa
inuu caddeynta ku wareeji doono. dhanka kale Domin wuxuu helayaa sawir uu ka tagay dilaagii kadibna sawirka dushiisa ayuu ku arkayaa magac Ingiriis ku qoran wuuna Google garaynayaa kadibna wuxuu ogaanayaa magacaas in lagu magacaabo museum. marka uu website-ka madxafka dib gudaha u galno wuxuu arkayaa Sun Yan sawirkeeda wuxuuna sidoo kale arkayaa sawirkii maxaabiista la gashay oo ninkan ku jiro. arrinkaas oo la yaab ku noqonaya asiga isla markaas Domin magaalada ayuu soo qabanaya si uu u ogaado museumka meesha ku yaalo. isla markaa goobta soo gaaran wuxuu arkayaa xariifka dilaaga ahaa wuuna daba raacaya kadibna dilaagii wuxuu u galayaa Sun Yan wal ay ku jirto isla markaana waxay bilaabaysaa jileenkeedii kadibna bashqada ay u dhiibaysaa sawirro ku jiraan. bashqada gadaal waxa uu qoran ciwaanka uu isku qarinayo Sanwu ayadoo ku amraysa markaan inuu ka takhaluso. ciwaanka Sanwu Sun Yan waxay ka heshay ninkii tahriibiyaha ahaa kadib markii la luushay lacag siisay kadibna dilaaga uu soo baxay si hoos u fuliyo. Domin markuu arko ninkan uu soo baxay uu soo daba raacaya asigana. ninkii dilaaga ahaa Domin iyo Abukatili iyo Yan Ran dhammaantood hal mar ay isla imaanayaan goobta Sanwu oo joogay kadibna Yan Ran Abukatili ka tagay kaligeed ay la kulmaysa Sanwu si ay lacagta u siisay kadibna caddeynta ka qaadato. laakiin intay dhiilka dhammaystiran dhacday in filin ayaa meesha ka dhacayso kadib markii ninkii dilaaga ahaa xabad soo gamay kadibna madax u gashay Sanwu halka ayuu ku geeriyoonaya. Yan Ran gaari gadaashiisa ay ku gambanaysaa ugu dambeyn ninkii dilaaga ay dhaawacaysaa kadibna bistoolada madax u qabanaysaa ayadoo weydiinaysa sababta uu dilay. wayna iska fahmaysaa Sun Yan inay amarka soo siisay markaas ay ku qalinaysaa sidee walaalkeed ku dili kartaa naagtaani miyay waalan tahay. waxaan la yaab ku sii noqonaysa kadib markii ninka isla goobtaas ku dilo. Domin iyo Abukatili maadaama ay meesha kaga dhawaan xabadihii ayay maqleen wayna soo cararayaan isla goobta ayay soo gaarayaan. isla markii goobta soo gaarana booliska ayaa sayrinteeda maqlayaan oo ambalaasta booliska ayaa soo yeerayso dhinac walba fiirinaya booliska ayaa ka jiro oo meel ay ku baxsadaan ma leh. Dominkan Sun Yan ayaa hore ugu shaqaysay inay ku dhacaan isla markaas ayaa bistoolada laga qaaday kadibna farahida ayaa laga tirtirayaa. Domin ayaana ka codsanaya inay goobta ugu tagaan asiga si uu booliisku ugu mashquuliyo halka Yan Ran ay ku qalinayso meeshan ugu tagi karna Domin. laakiin si walba ahaatu ku adkaysanaya inay goobta isaga tagaan. Abukatili ayaana ka dhadhacsiinaya inay soo deey karaan laakiin haddii ayaga la xiro in cidna soo deey karin. sheekadan halka ku soo gabagabeyso ugu dambeyn ahaanba ay siinaysaa wayna ka ogolaanaysaa. Abukatili ayaana ku cadaadinaya inay haddii baxsadaan ay ka badbaadi karaan ninkani. Domin booliiska intay xirayaan chance ay heleen ay ku baxsadaan wayna ku baxsanayaan. marka waxaan arkaynaa Sun Yan oo meedka walaalka dayayso waxaan halka ka dareemayna si hoos inay dhool caldeynayso sidii guusheeda ugu dambeysay inay gaartay. markii loo sheegay qofka la xiray inay Yan Ran ahayn uu Domin yahay isla markaas qorshe waali ayay degaysaa qorshe hore way bedelaysaa kadibna sawirka Domin ayay waxay u soo diraysaa Yan Ran iyadoo goob ku ballaminayso inay ugu timaado si degdeg ah. Sun Yan markaan kaarka isticmaalayso waxa Domin iyo wiilkiisa yariiska ah ayadoo ku dhashay Domin dambiga dhama isaga dusha ka saari doona wiilkiisa yariiska mustaqballaan ayaa ku dhici doonto haddii kale waa inay isdishaa warqadan qaadataa. marka warqada saxiixda kadibna isdishaa maadaama Yan Ran bilooyin isla joogeen Domin intii isla joogeen way jeclaatay mana doonayso wax dhibaato inay gaaraan iyo darteed u gaaraan kadibna bistoolad ay wadatay iyo la soo bixaysaa. Sun Yan ayna madax ka saaraysaa ayadoo ugu handadaysa inay isla goobta ugu takhalusayso laakiin waxay xaqsanaysaa digdishaxta inay waxba ka bedelin arrinkaani kadibna way isdejinaysaa warqadii ayna soo qaadanaysaa gurigeeda ay soo aadaysaa. fikir yar kadib waxay go'aansanaysaa inay iska takhalusto si ay u badbaadiso Domin laakiin isla markii madaxa bistoolada iska saartay ee riishada qaba rabtay ayaa albaab kale ogeyn guriga furmaayo isla markaasna meesha waxa ka soo baxay Jermankii intaanoo dham Jermanka ma una dhiman wuu noolaa. arrinkaas oo ama kaaga la naqanaya indha ayaan ka soo harayay iyada kadibna wuxuu ku leeyahay waryaahe qorshahan macaynkaanba iska takhalusi rabtaa hawsha aan ku diray halkay ku dambeysay sidaan dhambiya fulay u ahayd sidaan fudud miyaan laga raayay. haddaba waxa isweydiin mooda Jermanka sidoo qorshahan dhab ku sameeyay qorshihiisa horena sidoo ku bedelay. isla markaas Abukatili ayaa goobta soo gaaray. Abukatili waxa la yaab kula noqonaysa sababta Jermanka banaanka u yimid asigoo ku qaylinayo maxaa yeelay sidaas darteed ay Yan Ran ku ogaanaysaa inuu hore u ogaano inuu Jermanka nool yahay isla markaas iyadoo caraysan ay kulliti ka qabanaysaa kadibna ku dhahaysaa sababta ay qarisay xitaa Jermanka inuu nool yahay aniga ay u ciyaaraysan soo maahan. kadibna Jermanka ay soo aadaysaa kadibna waxay leedahay nolosheeda ayaa ku ciyaaraysa soo maahan waana daawanaysa sidii nolosheeda khatar u gashay ma ku raacisanaysay salca iyo saxiirka ay gelisay. Jermanka wuxuu leeyahay isdeji isla markaas ay ku leedahay sababta qorshahan iga qarisan ima aaminsanin soo maahan. Jermanka ayaa markaas ku dhahayo haddaan ku aaminsanin qorshahan dham soo ma geli lahayn sababta sidaan u sameeyay aniga ganacsada ayaa mar walba laba qorshe waa inaan yeeshaa. isla markaas ayaa uu wuxuu ku amrayaa inuu si degdeg ah kamariga gabadha magaceeda ugu qoro idina ku wareejiyo waana sida kaliya Sun Yan uu raay karna ayuu ku leeyahay. isla markaas xanuun ayaa qabanaya Abukatili ayaa qaaday kadibna cirbad ayuu siinayaa. maalinta xigta Yan Ran Abukatili ayay la kulmaysaa qorshaha maxaa loo bedelay inay ku leedahay. markaas ayaan arkaynaa Jermanka oo markii qorshaha dagayay asigoo Abukatili u sheegay inuu been isku dilaayo si warbaahinka familkiisa indhaha ay ku hayso maadaama sheekada ay noqonaysa Jermanka uu isdilay gabar dhalinyaro uu gursadana uu tagay hantida gabadhii xaaskiisa ay dhashana si ay hantidaas u wareegtay naagtaas weerar ku qaadayso laakiin isdilitaanka been ayaa ka dhigaynaa ayuu ku leeyahay maxaa yeelay waxaan doonayaa Sun Yan baabaeed inaan indhahayga ku arko intaan dhiman ka hor. qorshuhuna sidaas ayuu u bedelay. Abukatili ayaa markaan Yan Ran kula talinaya inay qaadato qorshaha Jermanka si loo badbaadiyo Domin. Sun Yan weerarka dhankeeda ayay ka wadaa maxaa yeelay maalinta la xiray Domin maalinta ka dambeysay ayay wargeysada sheekadiisa ku soo qortay waxayna ka dhigtay walaalkeed inuu asiga dilay. Abukatili arkaa markuu arkay isla markiiba wuxuu u aadayaa Domin wuxuuna u sheegay inuu sheekada ka dhigo inuu dilaaga ka soo raacay Munjaan kadibna soo daba raacay inuu arkay Sun asigu dilaayo isla markiina soo isdil rabo uu isku dayo inuu ka celsho inta uu ka celinayna kadibna xabad ay ku fakatay kadibna 48 saacadii booliiska cadeymo ay waayaan inay soo day doonaan laakiin 48 saac inta la gaarin ka hor ayaa dimibaarayaashii weerar soo qaadayeen imaanayaan ayagoo codsanaya in xabsiga weyn ay u gudbiyaan Domin kadib markii Sun Yan ay dimibaarada lacag siisay
meydkii dilaagana ay qariyeen sidoo kale cadeymihiisna ay baabi'iyeen taasoo ka dhigay Domin inuu Sanwu dilo isla markaas abukaatihi uu dareemaya qorshaha Sanwu ay arrinkan ka leedahay halka waddo oo waqti xadirkan lagu badbaadi karo Domin ay tahay ninkaas meydkiisa in la soo helo dilaaga ah isla markaas ay rag la shaqeynayaan ku tilmaamayaan ninka meydkiisa sidii u yaalo meel walba meydka lagu keediyay ay ka soo raadiyaan maalintii xigtay oo Sanwu la duugayay ayaa Yanran goobta soo gaaraysa iyadoo dhar gaduudan oo khatar ah soo xiratay kadibna Sunyan ay u tagtay iyo dhigta waxay ku leedahay waan jeclaalahay booskiisa in adiga dhimato aad baan ugu xumahay laakiin hadda waqti xadirkan waxaan doonayaa inaan soo helo dilaaga walaalka duugta markay dhamaato abukaati ayaa dadka kala banaanka u saarayo wuxuuna meesha ku reebayaa maamulka kambaniga iyo Sunyan wuxuuna u sheegay inuu halkan ka akhrinayo warqadda dhaxalka ee Jarmanka uu ka tagay warqadan waxaa ku qoran aniga oo ah Gaston Jarmanka kambanigan wax alaala waxaan hanti leeyahay iyo shirka aan ku leeyahay kambanigan waxaan ku wareejiyay Kim Yanran sidoo kale waxa uu magacaabay inay booskayga buuxiso oo ay noqoto qofka kambaniga maamulaya waxaan halkan ugu codsanayaa dhammaan madaxda iyo shaqaalaha kambaniga inay gabadhan si wacan ula shaqeeyaan tanina waa dardaarankii ugu dambeeyay Gaston nabaday Sunyan aad ay ugu weynaysaa arrinka maadaama lacag badan ay ku bixiyeen ninka meydkiisa in la soo helo waxa loo soo sheegay in la helay waxaan loo sheegay meyd aan la garanayn in isbitaalka la keenay cid qaraabo la ah oo soo sheegatan ay jirin sida darteed mar la gubaayo abukaataana qorshe kale ayuu degaya maadaama hadii uu tago isla markaas loo diidayo og yahay wuxuuna raadinayaa naag ay qaraabo yihiin ninkaani kadibna duqdi ayuu soo helayaa si meydka loo tuso kadibna ay u cadaysatay u qaadato Shanya markaan qorshahan ay wadato waa ka qasaariyay kadibna waxay ku ilbaxaysaa wardiyaheedii ugu dambeeyna waxay ku amraysaa inuu meydka gubo si Domin baxarka u galo wax walba ay ku qaadataba markaas wardiyihii oo meydka qaadan rabo ayaa wax u imaanayo abukaatihi iyo ciidamo la socdo oona wadaan duqdi ay qaraabada ahaayeen kadibna xoog ayaa meydka loo tusinaya duqda sidaas ayayna ku qaadanayaan ninka meydkiisa kaliya Domin lagu badbaadi karo waxa loo baahan sidoo kale marqaati ninka Buujaan ku soo arkay dadkii Buujaan dhammaan waxay imaanayaan saldhigga booliiska si ay marqaati u noqdaan laakiin falka markuu sameeyay qof aragti kuma jirto isla markaas ayaa hiisi oo dhaawac ka soo kabsata la keenaya meesha waxayna ku leedahay aniga ayaa indhahay kugu arko marqaati ah sida darteed waqti xadirkan wixii laga bilaabo Domin wax dambiye ma laha wala soo daynayaa isla markaas ayaa abukaatihi Yanran waxay u dhiibayaan wariyadii cadeymo kale oo dheeriya oo cadeynaya ninka dilaaga ah iyo Sunyan inay xiriir lahaayeen ayagoo ka rajeynaya inay TV-da ka soo dayso markaan waxay u maleeyaan Sunyan inay ka guuleysteen laakiin iyada qorshe kale gooniya ay geeskeeda ka wadataa isla markii booliisku warar ku qaadan si ay soo xiraan iyada ayaa ninkii wardiyaha isdhiibay kadibna u sheegay inuu asigi wax dham ka dambeeyay booliisku markuu soo tagana dimbaaradii ayuu wacaysaa iyo madaxa dimbaaraha laakiin cidna taleefka qaban mayso Sunyan maadaama markaan dhiiqay dhaxda ka taalo shirkadda dhankeena waxay u maleysaa markaan ay soo gabagabowday isla markaas ayaa dhacday la filin dhacayso shaqaaladii cusub ee Yanran guriga ugu tagatay ayaa suuq alaab ka doonanayso isla markaas ayaa badla kuwii guriga si dhuumasho la ku soo galaysaa si khamri qaali guriga yiri u soo xado laakiin si lama filaan ay waxay ku arkaysaa Jarmanka inuu nool yahay kadibna waa hubinaysaa inuu nool yahay in kale waxayna ogaanaysaa cudurka Alzheimer inuu ku dhacay oo xasuusta ka baaba'ay isla markaas ay taleefankiisa waxay ka wacaysaa Sunyan codkiisa ayana maqashinaysaa Sunyan markaan qorshe kale ayaa meeshan ugu soo baxay isla markii guriga ay soo aadaysaa ayadoo kuwii ku amraysa in nalka dhamaan damiso guriga markay timaadana shaqaaladii way imaanaysaa way arkaysaa Sunyan guriga sii galayso Yanran ayana wacaysaa weyn u sheegaysaa waxa meesha ka dhacay Yanran iyo abukaata waxay sugayaan Domin inay soo dhaweeyaan isla markaas ayaa Yanran soo cararayso si ay goobta ugu soo gaarto Jarmanka markaan Sunyan inuu istusiyo uu tala galay nafsadiisa inuu u horeeyo qarshiisa si uu u hirgalo maadaama cudurka kansarka uu waqti yarna u haystay cudurka dementia iyo hilmaanshahana uu iska wajilayay kadibna Sunyan markii soo gashay isla markii wuxuu ku bilaabay inuu gabadhiisa magaceeda uu magacaabo isla markiina wuxuu ku leeyahay asigoo gabadhiisa ka dhigay haddaba Sunyan iska ilaali waa gabar khaa'inad ah hanti kaliya u muuqato wax kale u muuqdaan waana gabar wuxuushad ah xataa hooyadeed hanti darteed ay aabaheed u dishay intay isbitaalka waalida u geysay qorshihiisana waa Sunyan inuu kama dambeys ka geeyo kadibna wuxuu ku leeyahay Sunyan aabaheed marka la dilay waa arkay oo iyadoo robda ayaa la dilay hooyadeed ayana ka dambeysay kadibna wax naxariis ma arkin iyada asagoo ugu yaray magaca gabartiisa isla markaas iyadoo xanaaqsan ayay waxay ku leedahay way dhimatay gabartaas qaladka ugu weyn aan galay waxay in mar hore ka takhalusay ay ku leedahay dhibkan oo dhan mari lahayn laakiin khayaan familkeena khayaan ayaa tahay ayaa ka takhalusay ay leedahay iyadoo careysan ayay waxay soo qabsanaysaa kashaweyto kadibna dhunta ayay ka gelinaysaa intuu Jarmanka dhiman ka horna waxay u sheegaysaa inay gabadhiisa iyada gacanteeda ku dishay kadibna Sunyan wuxuu ku leeyahay mahadsanid oo danta laha Jarmanka markaan uu gaaray asiga way dishay gabadhiisa inay dishana way qaratay kadibna warqad xal oo beenbeen ay soo qoratay ay soo qaadanaysaa kadibna suuqiisa ay ku dhajinaysaa laakiin Sunyan waxay ka warqabeen waxa meesha ka dhacay dham kaamira qarsoon inay u duubayso Jarmanka waxayna u maleysay badla ku yiin kaamirooyinka dham damisay laakiin Jarmanka uu ka aqal badnaa kaamira ka qarsoon ayuu meel gashtay Yanran guriga markay timaado waxay arkaysaa Jarmanka iyo meedo meesha yaalo iyadoo aad u xumaanaysa maadaama ay ka soo daahday kadibna qolkii kaamirooyinka ay galayaan si ay wax cadeyna ugu helaan waxayna halka ka ogaanayeen in kaamirooyinka dhamaan ay dansanayeen isla markaas ayaa Yanran waxay soo xasuusanaysaa maalinta imaanaysay inuu ogaato kaamira khaas oo meesha ku qarsooneed kadibna kaamirada ay soo aadaysan wayna helaysaa dhanka kale Sunyan waxay u qayb galaysaa kulankii maalgashadayaasha ee kambaniga iyadoo Soomaaliya warqadii feegeed ee dhaxalka ay ka saxiixatay Jarmanka markuu dhimanayay codeynta waxay ka helaysaa 30 cod taasoo ka dhigan kambaniga in la wareegayso laakiin inta dabaal degan ayaa screen ka dambeeyay waxa ka darmay Jarmanka oo hadlayo fiidiyowgiisa waana fiidiyow diyaar intuu dhiman ka hor asagoo sheegay Sunyan inay dambiile tahay gabadhiisa ay dishay asagana oo isdilin oo noolaa markaas ayaa waxa ka soo muuqanaya markii dilaysay
wax walba halkan ay ku cadaadeen fiidiyoga markuu dhamaadeen Yanran oo booliiska la socda ayaa meesha soo galayso laakiin Sanya wali weel dhiranta oo inay bedeli karto shaqada ay u malaysaa Yanran ayay u sii booteynaysaa inkastoo Jeermaanka Yanran in kamariga la wareegto u rabay haddana Yanran kamariga waxay ku wareejisay maamulihii sare ee la shaqeyn jiray Jeermaanka saaxiibkiisana ahaa markaan Shanyan dimiyeeda wax cadaadeen TV-yadan idaha saan oo shaqadeeda ayaa laga wada hadlayaa dhammaan dadka la shaqeeyo dambiyada la galna way qirteen dambiyadooda maxkamadda marka la soo saarana abukaateeda waxay ku amraysaa wax walba ay qaadato inuu soo daayo Yanran maxkamadda inay marqaatiyaan u imaanayso ma filaynin kadibna way imaanaysaa waxayna keenaysaa fiidiyoo ay soo hesho cadeen ah cadeentana waa gabartii Jeermaanka markii dilaysay Shanyu intuu dhimanna ka hor cadeenta wuxuu ka reebay fiidiyoo oo koobi ah kadibna hotelka uu deganaa ayay ka soo heleen ugu dambeyn Shanyan waxa lagu xukumay dil toogasho laakiin Shanyan wali inay guulaysan karto ay u malaysaa kadibna abukaateeda waxay ku amraysaa inuu rafaan si degdeg ah u dalbo laakiin saacan laga bilaabo shaqada waa iska casil ayuu ku leeyahay dhanka Yanran maadaama ay guulaystay dhibaatooyinka dhab ay ka baxday markaan waxay isku dayaysaa dhammaan kaamirooyinka guriga inay damiso kadibna folder ay meesha ka helaysaa oo Jeermaanka ugu tagay iyada fiidiyoo ayna daaraysaa kadibna Jeermaanka oo raali gelinaya ay ku arkaysaa wuxuuna ku leeyahay ilaa yaraantaada dhibaato ayaa ku jirtay weliga cid garab ku siisa maana arag oo waalidiin xun oo ku dhibaatay ayaa la soo nooleeyay hadda markaas uu weynaatana aniga ayaa ka faa'iideystay dhibaatadii ka daran ayaan ku geliyay marka waa iga raali noqotaa gabar fiican ayaa tahay noloshaada hore u wada farxad ku noolaaw hana yaafi maadaama qalad weyn aan ka galay qofka aad jeceshahay si farxada ku noolaaw ayuu ku leeyahay Yanran uu iska oynaysaa markaani asigoo ku dhahay buuga noloshiisa halkan ku soo xir ee noloshaada hore u wado ugu dambeyn Yanran iskuulkii uu jaan ku yaal dhismihii ay u iibinaysaa maamulada inuu diraysaa warqadii فينا ويتو فريق استعمال أي كل هذا هالك هيجي إسكول سنة ويلك أد وجعله أي تايم من لهاي ينران ويك قبل جلس أراس كذا دوم إن جعلك ويك أقبل سان ينران فرحة ينكون ولا نيان سيدو كلو حركة بدلك وي ولي وحيس قد كويس هذا كالعقد له قضي العقل يدو تجي سيارك أنا مركا قدام بين شيء إن مركا حبسك أيال جينا يا مركا سيا حبس سيدو كلو حال سجلنا يا ينران هويدت مركا أركتشين أصحابتي ذا يحكوا كل هذا قبل أن سفي عن لوسو دوايو dabeedna jugta ay laga tumayaa Shanyin shaqada waa dilaayo dilba ku dambeeyo taramadan halkan ay nagu dhamaatay hadaba halka dalan soo gaartay muuqaalka like ina saar hadana ugu cusubtana subscribe noo saar wixii ay noo halkan nagu reeb share tana waa dhankaada nabadii iyo kulan dambo